Italy's most wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro, has been arrested. waxaa qabashadiisa lagu fooganaa muddo 30 sannadood ah. waxaa la soo daristay xaalad caafimaad darro aad u daran. waxa uu sameeyay hal khalad kaasoo uu isticmaalay magaca saaxiibkiisii yaraanta isla soo kareen. haddaba qabashada booliskana waxa uu fududeysay isticmaalka magacaas. waxaan maanta inii wadaa madaxdii maafiyada ee 30 sano lagu raad joogay. mawduuciisa ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta waxa lagu magacaabi jiray Matteo Messina Denaro. haddaba wiilkan waxa uu ku soo koray deegaan aan saxsanayn maadaama uu aabihii ka mid ahaa xubin ka mid ah maafiyada ka arrimisa Talyaaniga. haddaba wiilka yari da'diisu markay ahayd 14 jir waxa uu bartay sida hubka loo isticmaalo loona qaato loona rido ayuu bartay isagoo da'da intaa leeg jira. sidoo kale 18 jirkiisina waxa uu ka mid noqday xubin maafiyada ka mid ah kaasoo dadka maafiyada shaaxa iyo waxyaabaha yaryar ee amaradooda u fulin jiray. haddaba ninkani maafiyada sidoo ugu dhex jiray waxa loo diray dilal. haddaba ninkan markuu wax soo dilo ninka maata lagu magacaabo markuu wax soo dilo uu dil geysto waxa uu ka dareemi jiray farxad waana uu ku faani jiray dilalkiisa ilaa markii dambe uu maafiyadii ay la yaabeen iyagiiba ay ninkii markii dambe awood caleema saareen una doorteen hogaamiyaha dhan ee maafiyada hogaamiya sidaasna ku noqday madaxda maafiyada. haddaba ninkan wuxuu taargetka saari jiray dadka cadeymaha ku haya aabihii iyo dadka raadka ku daba haya booliska iyo waxyaabahaas uu cagta aad ugu badan jiray. haddaba waxa uu geystay dilal aan fooxun waxaana dilalka ka mid ah wiil yar oo 12 jir ah wiilkaasoo cadeyma ka haya aabihii cadeyma ka hayay oo la doonayay wiilkaasi inuu aabihii ku cadeeyo arrimaha uu ka hayo. haddaba wiilka yar waa uu soo qabtay gacantana waa uu soo galay sidaas uu dilay waxa uu ku shubay jirkiisa oo dhan acid waxa uu ku shubay acid dilka waa lagu eedeeyay waana lagu qabtay dissolved in acid. haddaba sidoo kale waxa uu geystay dil kale oo laba qareen looyara ah ayuu dil u geystay. markii lagu helay cadeyma iyo raadadkii lagu helay inuu isagu geystay maanta inuu geystay dilalkaas waxay maxkamaddu soo saartay qaraar ah inuu ninkaasi markii gacanta lagu soo dhigay uu xabsi daa'im yahay. sidoo kalena waxa uu geystay qaraxaas ay ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen 100 qof oo ka dhacay Talyaaniga. haddaba ninkani markii ay gacanta saa booliska ugu soo dhigaan waxa u qorshaysan in ay dil toogasho iyo xabsi daa'im labadaba madaxa la isku geliyo. haddaba ninkani muddo 30 sano ka bacdi waxa uu dhuumaalaystaba waxa uu magaalada ku jiraba waxa uu deegaanadii uu ku dhashay ku meereysaba waa la soo qabtay ugu dambeyntii. haddaba ninkani meel fogba kuma nooleen waxa uu ku noolaa deegaankii uu ku dhashay agagaarkiisa. dadka jaarkiisina waxa uu hayseen nin aad u fiican maadaama uu marmarku ka soo horbaxana si fiican u salaami jiray. haddaba nin ka mid ah jaarkiisa ayaa waxa uu soo sheegay booliska ninkan lagu raad joogaaba inuu ninkan uu jaar la yahayba sidaas ayayna booliskii ugu fududaatay. haddaba ninkan waxa la soo daristay xaalad caafimaad darro aad u adag baa la soo daristay. haddaba ninkan wuxuu isticmaalay magac wiil ay saaxiibay ahaayeen oo lagu magacaabo Andrea Bonofi lagu magacaabo ayuu isticmaalay. haddaba wiilkani markuu magaca isticmaalay waxa uu galay goobihii caafimaadku daryeel iyo wixii uga baahnaa iyo dawooyin iyo la tacaalida caafimaadka hayay ayuu uga doontay. dhakhtarkiina saasuu isku diiwaan geliyay inuu magaca isticmaalo maadaama wajigiisa aqoon badan saa loogu lahayn. magacii buu muddo iska isticmaalayay halkii buu daryeel iyo xanaaneyn iyo wax walba ka helayay. haddaba waxa dhacday wiilkii jaarkiisa ahaa inuu arrintii booliska uu sheegay uu dhaahdo ninkani waa ninkii la raadinayay. haddaba booliskii ma ay degdegin ee waxa ay sameeyeen tallaabo aad u qurux badan waxayna hubsadeen magacan uu isticmaalaya inuu dalka uu joogo. nasiib darro haddaba wiilkan uu magaciisa isticmaalaya Andrea lagu magacaabo inuu muddo dalkaba una joogin Talyaaniga. waxaan halka xaqiiqowday inuu ninkani yahay maata oo madaxdii maafiyada ahayd sidaasna loogu soo qabtay isagoo dhakhtarkii iskaga jira bishii dhaweedayna dhaaftay. haddaba qabashadii It's not every day that Sicilian anti-mafia police are congratulated on the streets of Palermo. ninkani waxay aad u farxad gelisay dhammaan shacabkii ku noolaa dalka Talyaaniga. sidaasoo kale waxayna ka faa'iideynaa sheekadeena inayna horta waxa la yiraahdo been ayna raad lahayn dambi ka soo gashaana fogaata dhawaata kii lagu soo helo ay tahay ugu dambeyn lagu soo qabto amba 30 sano dhuumo amba meesha doonta kala dhex lamar hadii laasiman aad dambi dhiigeed amba nooc doonaba ha geystay aad gashid oo dhuumasho ku jirtay kii la soo qabtaa tahay. mawduucina maanta inahaas ayaynu ku soo koobi doonaa. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi